barsaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo maayirka degmada Gabiley Shacib Maxamed Muuse oo weheliyo Chief Caaqil Dayb Cabdi Ciile Amaan iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer ku maray degmooyinka Allay Baday iyo Geedbalaad. Kormeerkan ayaa la xiriiray sidii madaxda gobolka ugu kuurgali lahayd xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanadaasi, iyadoo kormeerkan uu daarnaa sidii abaaraha wax looga qaban lahaa isla markaana roobdoon iyo waliba allabari loo sameyn lahaa. Maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa kulamo la qaatay madaxda deegaanadaasi kuwaas oo uga warbixiya abaaraha ku habsaday inta badan deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley. Haddaba mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley oo kulamo la qaatay madaxda deegaanadaasi ayaa waxay u dhacday sida tan. تصمم على طريقة وحنقارن بقى نبع على فرق لكن ممكن كسر على فرق اللي يبقى كذا ممكن زي لا تصبر له يا رب ربنا يبارك كسر لا يبارك كسر إن شاء الله ولا هي رحمتي سلسلة رحمة هاي قاعد يسمع ويروح على صدر القرآن بسيط إلى ما عصر راسه اللهم إني كنت قبارة فانسان سنة على البلاد اللهم إني كنت قبارة فانسان سنة على البلاد رزقه وعطاء الله يقبله وخذته وصار الجيل أقول أنا بقول عصانا كين كبير وبعد أولي الساعة أبو كلي في الأول كانت تقولي وحلو قايلوا وحلو صباحا أنا تدرسي بصايا ورباها وأنا الولد اللي هو رباطه اللي هو رباطه يموت والله هذا واحد الماس ما خذها بس يقدر بجي هو خوف له يسن خلاص بس كسر هذا الصبح يتليو يعني السؤال ده صار لو دايما الغيران صار خلال الفقره قال تقاليد انا كل عمل قايل لكن دي خلاص كل عمل قايل صوت على قايل عن دي بس ما يصير ربع ساعتين وارسل سوق مود وحوي ما سوي واسمع ماشي نيكا وين كلني كتو وسيل كل وصفر عام والله ما خاد ده وين ده عام سمالي انا كله يمينو كان وصل ورقه عارف شو ريسي يلا ده بقول يمين شنو ريسي انا بدي صور عنده فوق عايز شو كل شيء صبر ما تسيا ودي سوق بلغ ابو صلاه وحول صلاه قال ما تدور حاجه بطلت حاجه كل وحي يتعامل على بشيء لا ما تقبل يعني يوم أخذ وجرنا إلى ما وصل يوم لا ما تقبل ما كان تقبل فرنا وصل الله نحن إلى ما قبل لا يدور وصل يوم أما دعاء سواء ولا روح ما تناصر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدالود في وياش يوم الجمهورية ويكون في هذا ما تحيان تكاد درت ولا تعي وده هسه الشيء أنت وشيء عقلك والشيء وقليل لكن ما أنت هالك وجود درن نباتين كده هاجمت هاي ضدك يعني حديد ضدك حلس كتشلو درنتي واحد نسي وشباب ماشي ميال لأنه شو بهذا كنا مركز الإسلام كانت هاي وين تقدر يلوسوا المداوي أنت أول حيسد يقول عليه إلا هالكنا يبتشونه إلا إيو جيد بلا دين عادة شيء هذا الإنترنت بيها وجود درن ده لو وجود ماني وين تاوي meelaha kale xaq ku laadaan laakiin meelo biyo ka cabaan ku dhow marka waxa la noo sheegay halka markaan soo soconay yeerida magaala farxaan halka ka cabaan baan weydiinay si waxa arti biyo ma haysano gaar waxa noo jira afar jirkaan oo dad noo soo dhaaway afar habeen ka hor taas ayay si caabina waxa tuu maqnaadaan oo noo dhamaanaysa hadii la day isaga meesha ka soo dhaamay waxay tiri amadiina aadina go'aala meena barcun oo si dhamaanay labada meelood baa si wax qoyaan oo iyaguna de aan ahayn wax kale laakiin iyaguna dhamaanay insha Allah kormeerkana waxa la arkaa saaka oo iyadoo ay adag tahay hargeysa ku socdo safar hargeysa u tagayo markii xaaladda ogaaday degdeg waan ka saqaatay weli nasaara saasa ku soo baxnay wixii karaan iyaga aan wada harimayno hadday tidmid tahay iyo hadday gobol tahay iyo haddii barisaab xukuumadda sareynta tahay in fariinta maanta halkaana si degdeg loo gudbiyo ganacsatada gobolka ka soo jeeda iyo dhammaan biyo dhaans la bilaabo oo dadka la badbaadiyo oo waxa weeyaan dadka bay maraysaa waxa la yidhi ay dhaaftay geeska qabo
geeska qaba maraysaa inta baash marka insha allah in ilaahay nagu guuleeyey marka hore inaynu ilaahay barino oo si ducada laynoo aqbalo oo maanta ilaahay raxmadiisa inoo shubeyno cid walba kaga maaragta kaga baahi baxayno in maanta ilaahay markaa raxmadiisa inoo shuban weydiisanayno in ilaahay ummadiisa u naxariisto maantida iyo mayeedhaanka oo waxa weeyaan maanta abaaraha dhacaya iyo waxyaabaha dhacaya waxa laga yaabaa in wax aynu kasbanayn ay tahay bima kasaba aydiikum wayacfu can kathiir yani waxa weeye waxa dhacaya waxaynu gacanteena ku kasbanayn waxa ilaahay inta badan inoo sheegay haddii aanay jirin lowlal bahayn oo xooluhu aanay jirin inaan roob bay ilaahay keenan raxmadiisa iska haysan lahaa markaa bal inaguna xagga ilaahay aanu noqon dadku ilaahay ha noqdaan oo ilaahooda ha baryaan oo bal sidii ummaddu xagga ilaahay ugu jeedsan lahayd taana maaragta ha timaado wax ilaahay gartay wey ilaah baa inaga jebin kara markaan waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay ducadana haynoo aqbalo oo raxmadiisa haynoo shubo dee anaguna markaanu noqono insha allah baa qaban beri doona barasaakuna kusoo dhawaado kuli naga qanacsilarta ilaahayna horta marka weydiisayna naga qaado isagaa ku filan dadkiisa waxay ahayd altaraani waxay dowlada qabataa midna ma jiraan biniaadam maxaa ma taro abaartaa jirtana waa dambiyadii aanu galay biniaadam gaala ila waxaan weydiisanayaa dambiyadaanu galay inuu naga cafiyo dambiyadaanu galay inaanu dhibaato ugu maaragtay bahaayinka beer qoyn iyo xasharaadkiisaba ilahay inuu noogu naxariisto oo nooga dulqaado taa ilaah weydiiseen roobka ilahay degdeg inoo siiyo intaa marka laga tago anagu saaka waxay la soo hadlay xogayaha degmada saakada markaan muddada kasoo toosay anigoo badan ku inaanu workshop nimo furno dabeedna hargeyso ba iyadoo u dhaxeeya arrinta abaaraha inaan u dhaxeeyo baa ninkan la soo hadlay xogay iyo duqa degmada maasha degmada geed black labadaas isla saakay la soo hadlo cabasho aada u daran cabanay anigu waxaan ahaa haddii la eego gabadha mas-uuliyiinta marka loo eego dalka halka ugu horreysay cabashada abaarta ee laga jeediyahay waxaan u dirnay dowladda iyo hay-adaha se waxaa ka qiimo badnaa in ilaahayna weydiisano markasta inaan xagga ilaah u kacno marka hay-adahaasna wax weydiinayna iyo dowladda iyo abaarta sababkaa laakiin ilahay waxaan ka baryay in isagan mar walba ilahay mar kasta wax weydiisanayna marka anagu laakiin mas-uuliyaddiina saarneed inaan dowladda dhexe mas-uulka naga hay anuu xiriiriyaha gobolka iyo dowladda dhexaad waan gaarsiiyey judhiiba abaarta baaqi waanan ku celiyey mar labaad waxaan shiriyay hay-adihii gobol ka shaqeynaya dhinaca beeraha iyo deegaan ka shaqeynaya intana waan usoo bandhigay arrintan abaaraha usoo bandhigay maanta waxaa idinla joogay oo deegaankan maraya xubno hay-ada ka socda oo asas garaynaya ama qiimeynaya abaarta xadka ay leedahay ayaa idinla jooga oo hogaaminaysa duwihii beeraha gobol ayaa idinla joogay ina marka iga soo horeeyaan inay iga dambeeyaan labadu waa dhici kartaa hadday marag annagu inta waxaan u soconaa gobolka dhaqaale yaalo oo abaaraha wax laga qabanaya ma jiro laakiin inaan u qaylno dowladdii dhexe iyo hay-adihii aan u qaylno oo warka diyaarina wey dowladdana saaran isla markaana hal ilmaan baynu leyna waa gebeley maayarka gebeleyna waxa nala socda isna inta uu ka qaban karo uu ka qabto maadaama uu gebele ka itaalroontahay degmooyinkii kale inuu wax ka qabto isna dhinaciisa iyadoo aanu isna la kaashanayno dee dowladda dhexe dowladdii hoose iyo wixii baynu iskaashan gacmahaas haysano runtii isaga dhiirigelin maaragtay isoo dhiirigeliyey runtii inaan hargeysa ku horreyn halka kusoo horeeyo aynu wax ka qaban karno annaga hordhac kala weydiin wuxuunu marka annagoo dowladda sidii wali kaashanayo taas halkaa annagu tabarteedu insha allah warkii waan gudbin doonaa intaan hadda soo socday hay-adihii ama balansanay aan la hadlay telefoon kula hadlay insha allah waan rajeynaynaa in kulleyba jawaab oo dadka qiimaha biyaha maanta 17 kun gaadhay toosada ugu yaraan inaanu maaragtay hoos u ridno insha allah waan isku dayi doonaa kole biyo bilaash oo dowr soo gaarsiin doonaa deegaanka taasi halkaasaan kaga baxaya wixii wax qabada insha allah isla arki doonaa tii horaa soo hadhay kulankay ugu horeeyay waa maalintii labaad baan idiin markaan xilkada wareegay waana idiin sheeg sababto waxay ahayd inaanan laiga sheekayn alay daday iyo degmooyinka kale aan xukumayay deegaamada kale inaan warka hargeysa laigu aamin gabilay laigu dhex keenin inaan soo arko xogna iguma seeganaan iminka war badan waan ka hayaa alay daday inoo idii imanna waan idii hadlaa intaa aman madax la hadlo ama aan tigiye ka hadlo dalamiyaanu kala qaadnay laba ugu muhiimsanaa saddex walba ugu muhiimsanaa waxay horta beeraha halkana ciidanka la isku haystay markiiba anigu saaray xigeenka deegaanka ah ee gobolka iyo maayarka degmada aan saaray iyo taliya ciidanka
markii taasan kaga baxay markii waa guddiga saaray in hawsha ay ga xalalaan talaba soo adeey dhamaystirka guriga martida iyo waxay in la helo xabsi ama iyo maxkamad waa dhibaatada weynada sheegtay waxa kamid ah qofka isagoo aan garsoor loo geyn baa telefoon laga xaalay waxyaabaha baahidin waa badnayd laakiin waxyaabaha priority gareey waxa kamid ah in qofka bini'aadamku cadaalad helo waxyaabaha abaarta keen waxa kamid ah cadaalad darrada qof aan dambigiisa loogeyn garsoorihii isagoo arag haddii uu ka aqbalo dabibaari in loo xalaalay iska haysto cadaalad darrada ka imaanaysa garsoorada inuu ku qancaa qofka in dambi layn karo taana waanu kala hadlay gudoomiyihii maxkamadda sare ee xeelaalihii ku-xigeenka xelaaliyaha waanu gabalay sugnami waxaanu ka hadlay in bal calala laba qolo midna xelaalintu sii degto midna maxkamaddu ay degaan in lasii helo ama aanu sii karayno loo sii kareeyo dabeedna markaa loo raadiyo inuu dhis loo helo gurigii martidana waxaan u malaynaya waa gabagabo isagoon ka howlgalay maayarka lacagtii kaashka gacanta ku hayo marka idinku haddii maayarkiinu dhamaystir haddii kale sar kale xisaabtamaysa annagu waan soo dhaaf annagu waan soo dhaaf idinkoo keliya idimaan socday dalkoo dhan baan socday gobolkoo dhan baan socday arabsiyo kawaan baan dhagax dhignay muhiimadooda kawaan u baahay maayarka degmada gabaley baan naga kafaalo qaado dhamaystiray haddii rabadaad xiriirshaada geed balaarigana mashaariic filan ka qaban doonaa dowladda hoose gabaley waa iyana kaga filan uma baahna inaan dowladda dhexe u tukano horta intaasi waa jawaabtii dee safarkayga hore waana intaanu kari karayn insha allah marku aanu sameyn intaanu sii joogno kolley waqtiga qofba inbuu joogayahay intaan sii joogno kolley maalinba haddaan mid dhameyno mid kale ayaanu wax ka dooni doonaa insha allah waxaana si daraadee 114 baliyo degmada ama ismaan ahayn alay baday biilaanba ka dhacaysa saako ka naxay warka markuu ii soo sheegay waan sababtaan meesha ugu horeysaan soo istaago marka laga tago dhulkan soo mareeyay dhulkan soo mareeyay tuulooyinka hore marka laga tago ilaa magaalo farxaan waxay ahayd maalku ugu horeysan ku hanqado oo dee aan la fadhiisto maamulkii odayaasha halka dadku aan wareysanaynay anagoo gaadhiga saaran baan wareysanaynay xogta indhahaanu ka arkaynaba meel geeda leba hal meel baan soo aragay bal yar meel ka baxay beerihii dhammaan كل سنة تقول قاري أنا بتوصل إن شاء الله بدأنا نحن نسوي دعاء إن شاء الله يعني هذه